بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد ما أنت سيدا أن كوبلان سنين waxaan rabnay in aan soo bandhigno ka gudi ahaan shuruudaha laga rabo xildhibaanka u rashaxan in la soo xulo oo uu ka mid noqdo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya shuruudaha uu gudiga maanta soo saaray waa 10 shuruud oo laga rabo xildhibaan kasta oo ka mid noqonaya baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inuu soo buuxiyo marka waxaan idin akhrinaynaa oo aan idin la wadaagaynaa maanta shuruudaha ka mid noqoshada golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyada oo lagu guda jiro muddada loo asteeyay soo xulista golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya guddiga farsamada madaxa bannaan ee soo xulista baarlamaanka labaad waxa uu soo saaray shuruudaha laga rabo xubinta u sharaxan xildhibaannimada sida uu qabo qodobka 38aad ee dastuurka ku-meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya murashaxa doonaya inuu xubin ka noqdo golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waa in uu soo buuxiyaa shuruudahan soo socda in uu muslim yahay kuna dhaqmaa diinta islaamka 2 in uu Soomaali yahay kana soo jeeda deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 3 inaysan da'diisu ka yarayn 25 sano 4 in uu dhimirkiisa fiyow yahay 5 inuusan qabin xanuun ka hor istaagi kara gudashada waajibaadkiisa shaqo 6 in uu leeyahay ugu yaraan aqoon dugsi sare ama waayo aragnimo u dhiganta 7 in uu bixiyaa khidmadda diiwaangelinta 8 inaysan maxkamad horay ugu ridin xukun la xiriira faldambiyeed 9 inuu kala yimaado hay'adaha amniga warqad cadeynaysa inuusan dambiile ahayn ama uusan ka tirsanayn ururada argagixisada 10 inuu soo buuxiyo foomka dalbashada xubinka noqoshada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya 7 kan qodob waa 10 qodob aan uga dhignay shuruudaha laga rabo xildhibaan mid noqdo baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mid kale odayaasha waa la wadaagnay in ay shuruudahani waa la wadaagnay waan isla fahamnay qof kasto oo ay soo xulayaan oo ay u soo xilayaan baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ka soo hubiyaan in uu soo buuxiyay shuruudahan annagana waa ku kontrooli doonaa waana jagarayn doonaa si fiican waa u hubin doonaa in shuruudahan uu ka soo baxay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh